midaas waxa la isku calaacala kadib waxaa la isla meel dhigay in aan la kala maarmin oo nafta la isku hurayo axmed ayaa telefoon ku wacay nasra una sheegay waxaa taagan bal xaggeeda sida ay u aragto hase yeeshee waxa ay u sheegtay in ay horay u diiday laakiin duco iyo habaarna la hordhigay oo arrintu ay tahay laba daran mid dooro dadis dhawrta dantaali ogaaye dhagaxaan ka furaysan dhammaan nacabkeena nin dan leh madaalee axmed yare waxa uu mar kale ku soo noqday hooyo siraad intuu garka iyo jilbaha qabsaday ka codsaday mar kale taageero jacaylkiisa ah laakiin maamo siraad waxa ay axmed u sheegtay in maalinta beriya ma ahee saa dambe uu aqalgeli doono warkii hore war soo dhaaf axmed waxaa mar kale u bariyey waa cusub wuxuuna hooyadii u sheegay in aysan dhici karin dunidana uu ka tegi doono haddii arrintaasi la meelmariyo hooyo siraad ayaa intay dhoola caddaysay kuna tiri waa lagu taliyaa ee adiga iskuma talisid warka maqal axmed inta uu ilmeeyey ayuu ku celiyey mar kale in uu adduunyada ka tegi doono haddii uusan helin suleeqa ileen waxaa gubaya gantaalada caashaqa taabaddelkeedana waxaa murugada la qaba oo fikirka dartiisa daamanka u qormeen suleeqa iyana jeclayd axmed yare dhammaadkii dunida axmed iyo dhaawacii duruuftii suleeqa axmed ayaa tegay goobaha magaalada beledweyne laguna iibiyo sunta cayayaanka wuxuu soo iibsaday sun ay tayadeedu aad u sarayso waxa uu yimid goor cisho ah kadib sariirtii hurdada ayuu fuulay waxa uuna horay u soo qaatay raadiyow ama rikoor uu ku duubay arrinta uu u dhimanayo iyo hadlo dardaaran ah oo uu u jeedinayo gabadhii uu jeclaa waxa uuna kadib cabay suntii isla habeenkiina halkii ayuu ku qoobaxay oo jacaylkii dartiisa ayuu halkaasi ugu dhintay naftiisana u cadaabay suntina u cabay reerkii axmed ayaa goor dambe oo galabtii ah arkay in axmed uu hurdayo waxaana loo sheegay hooyadii maamo siraad ayaa damacday in ay kiciso misna waaba mayd oohin iyo baroor ayay isku dartay maamo siraad waxaana isku soo baxay dhammaan dadkii deriska ahaa waxaa furmay jawi murugo iyo tacasiib ku dhisan allah kamaysan fiirsan maamo siraad arrintan inay keeni karto dhimasho dadkuna waxa ay aad uga murugoodeen dhimashada wiilkan xaafadda loogu jeclaa asturaadda meydka kadib waxaa la helay cajalkii ku jiray raadiyaha iyo fariintii marxuumkii dhintay ee sunta cabay waxaana arrintii ka war heshay lamaanihiisa ama gacalisidiisa oo iyada darteed uu u dhintay inankan yar ee axmed yare iyadiina welwel xoog leh ayaa soo wajahay markii ay maqashay geerida gacaliyaheedii axmed yare maalmo fikir zaa'id ah baroor iyo murugo kadib waxa ay qaadatay caag bansiin ku jiro iyo taraq inta ay suuliga ama musqusha la gashay ayay dabkii isqabadsiisay waxaana la arkay holac musqushii ka soo ifaya dadkii ayaa soo wada duday kadib maxaa dhacay mise way xiran tahay musqushii waxaa la bilaabay in la jebiyo misna waa suleeqa
oo guban naf xunna ay ku jirto waxaa loola cararay cisbitaal muddo dheer kadibna waxaa la ogaaday in dabka uu u dhacay maskaxda Suleeqa oo aysan waxba ogeyn sidaasina ku noqotay qof waalan ogow jacaylku wax loo dhinto qof waliba jacaylkiisa ha qadariyo waa iga dardaaran